howlaha aynu bilowno. Kalfadhigaani wuxuu leeyahay muhiimad aad iyo aad u ballaaran oo ku saabsan jiritaanka iyo muuqaalka iyo heerka siyaasadeed ee ummadda Soomaaliyeed ay taagan tahay maanta. waxaan rabaa marka in maanka lagu hayo muhiimadda uu leeyahay kalfadhigeennan koowaad iyo muhiimadda ay ku fadhiyaan senatarada dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ah. waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo maalintii dhaweyd oo layna dhaariyey adduunka iyo Soomaaliduba siday u dareentay oo u aragtay. iska daa wax kaleeto oo waxaa aad loo dareemay caasimadda aynu dhex fadhino oo Muqdisho. dadka degan waxay dareemeen si aynan aad iyo aad aynan moogaan karin oo idinkuba ka dareemaysaan dadka faraxa iyo siday u arkeen dhaarinta la dhaariyey baarlamaankii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. xataa baqdintii badnayd oo ka jirtay arrimaha nabadgelyada oo dadku baqahayay, haddaan idin idhaahdo wax badan baa iska bedelay. maanta magaalada Muqdisho aad bay uga duwan tahay maalmihii dhaweyd oo inagu aynu soo degaynay. aad bay uga degantay. dad badan oo reer magaalka ah iyo dad kaleetaba oo i soo wacay anigu arrintaa aad bay u fasirahayaan. meelaha layga soo wacay Soomaali kaliya ma aha, hay-adaha kan Soomaalida cawimo oo la yidhaahdo beesha caalamka, xafiiska James Swan waa layga soo wacay. dareenkaas ayay muujinayeen. waxay ku darsadeen in maanta ay Soomaaliya yeelatay tiir aasaasiya oo sharci ah oo muujinaya dhibtii badnayd oo muddadii dambeyd ay Soomaaliya ku jirtay wax ka bedelan inay soo baxeen. marka intaasi waa iga xusuusin inaynu dareenkaas yeelanno oo sidaas aynu u qaadanno ayaan idinka codsanayaa. waxay muujinaysaa muhiimadda aynu u leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasadda caalamka aynu kula dhaqanno. arrintaa mar haddii aan idhaahdo waxaan rabnaa marka inaynu hawsheennii gudagallo haddii Rabbi idmo. howlaha inoo yaalla waxaa ka mid ah qoraalada iyo warqadaha laynoo qaybshay oo aan rabno in lasoo akhristo si aynu howlihii caadiga ahaa aynu u gudagalno. howluhuna markaan leeyahay caadi waa shaqadeenna, laakiin wax badan oon caadi ahayn oo dalku ku sugan yahay oo ay tahay in aynu dedejinno oo hawl ka qabanno ayaa inoo yaalla. mudanayaal iyo marweyn, waxaan rabaa inaan informationna maadaama khudbad dheer ayan jirinin waxyaalihii intii layna dhaariyey dareenka abuurmay. xalayto waxaan la kulannay prime ministerkii, aniga iyo guddoomiyaha ku meel gaarka ah oo golaha shacabka. wuxuu noo muujiyey dareenka uu qabo oo muujinahaya muuqaalka iyo sharciyadda uu leeyahay baarlamaanka dowladda federaalka ah. wuxuu noo muujiyey oo naga codsaday shaqada inoo taalla oo ay kow ka tahay doorashada guddoonka labada aqal in la doorto. taas waxay sii siyaadinaysaa dareenka abuurmay oo aan hadda sheegahayo. waxay muujinaysaa dhib badan oo lasoo maray labadii sano lasoo dhaafay, khilaafaad badan oo lasoo maray
in ay wax ka bedelan oo arrintaas oo dhan xallinaysa oo asaas u ah in ay muujinaysaa kana hawlgelaysaa waxyaalaha saaxiibadii qaar badan ba hadda ay u sheegay prime ministerkii markaan ka soo baxnay waxay soo wacay madaxweynaha ayaa soo wacay waxaan aada iyo aada runtii markii aan telefoonka dhigay anigu aan iskula hadlay war wixii naloo sheegaya midhaa waxbaa beenka ah wax la abuurayay ba ahaayeen maxay tahay waxaas hadalladii prime ministerku nagula hadlay iyo dareenka uu muujinahayay dhismaha iyo dhaarinta iyo kalfadhiga kan uu ka qabay intii in leeguu madaxweynuhuna ii sheegay beenadii ii sheegaya markii aan telefoonka dhigay anaa isla hadlo waxaan idhi wartona wixii laydiin sheegahayey waxba kama jiraan waxba ka jiraan dad baa ka biic mushtarahayey miyaa yani labaduba waxay muujiyeen oo qabeen in si dhab ah loo dhiso oo degdeg ah welibaba oo bisha tan inta ka hartay ah guddoonkii labada aqal ee baarlamaanka mudanayaanu iyo murweyn yacni waynu dareensannahay innaga laftigeena baahida jirta inaynu howlahaas aynu si dhab ah uga howlgalno oo aynu dareenkeenna iyo waxqabadkeenna aynu isku darno waxaan rabaa inaan idiin sheego howlaha ina hor yaalla oo arki doontaan oo hadda aad ka akhrisanaysaan qoraalada laydin dhiibay sharciyada ku-meel gaarka iyo kuwa kaleba waxay muujinayaan inaynu hawshaas guddoonka aynu degdeg ugu diyaar garowno oo guddigii hawshaa qaban lahaa aynu si degdega u dhisno dabcan guddigu maalmo iyo waa suurtoodaa inuuna ka hawlihiisa iyo barnaamijkiisa iyo wixiisa soo diyaarsado laakiin innaga waxaa laynoo kaga baahan yahay inaynu si degdega aynu u dhisno warqadaha laydiin qaybshay ayay ku xusanta habkii awal loo dooran jiray habka guddosan baan rabnaa inaynu u dhisno inaad igu raacdaanna waa rajaynayaa aqalka senataradu wuxuu ka kooban yahay ama ka yimid oo wakiil ka yahay waa dowlad goboleedyo markuu wakiil ka yahay oo sidaas tahay xubnuhuna waxay ku soo baxayaan halkaasi ka soo baxayaan dowlad goboleed kasta xubnaha ka soo jeeda markaan leeyahay dowlad goboleed kasta dabcan somalilan waa nagu jirtaayoo hadda waa maamul jira oo dowladeed oo soomaaliyeed weeye marka dad baa matalahaya markaan saas leeyahay marka waa 6 dowlad goboleed oo kaleeto weeye in xubnuhu dadkii ka yimid matalada ahaa inay iska soo xulaan xubnaha doorashada guddiga doorashada waagii hore waxaan u malaynayaa magaco iyo waxbaa jiray laakiin hadda inaanu ka bedelno ayaan annagu ay nala tahay soona jeedinaynaa inaan ugu raacdaanna waa rajaynaya ma raba inaan khudbadoodan akhriyo sharciyada iyo waxyaalaha laydiin akhriyey oo aynu ku shaqayn doono ilaa iyo doorashada guddoonka waxaa lagama maarmaan noqotay oo ay tahay in innaga iyo aqalka golaha shacabka aynu ka wada shirno oo isku si aynu u ansixino waa laydiin qaybiyo waad haysataa waa buugga yarkaca weeye in si guud loo wada ansixiyo ayaan rajaynaynaa haddii rabbi idmo inaynu ugu diyaargarowno markaa sidii aynu hawshaa u gudan lahayn oo wakhtiga kooban ah baan rabaa inaan iyadan idiin sheego waxaan rabaa maadaama khudbooyin kaleeta iyo khudbad rasmiya oo anigu aan akhriyay ay jireen ay tahay is-ogeysiis waxaan idiin soo jeedinayaa oo idinka codsanayaa muddada hawsha inoo socoto inaynaan ku kala teginin saaxiibo badan oo senataro ah baa hadda isu diyaarinahaya inay cimradii aadaan inkastoo aanu isqancinnay anigu waxaanan idhi hawshaanan hayno ummaddeennan burburka iyo dhibaatadu ay soo daashatay
hawsha aynu u hayno ayaa haddii rabbi idmo ilaahay ka codsanayna inuu masaalax nagu siiyo. iyadaasaa ka muhiimsan wax badan oo qofku gaar u leeyahay. marka iyadaas baynu ilaahay ka codsanaynaa inaynu ajar naga siiyo, dadkeenna aan u matalno, annagoo aan cidna dana gaara iyo magaciisi aanan ka lahayn, ee dantaa wadaniyadda ah ummadda soomaaliyeed u baahan tahay, oo aan leenahay maanta soomaaliya yacni muddadaas yar wax badan baa iska beddelay. marka waxaan ka codsanayaa ciddii ay ku jirtay inay fasax meel u aaddo, inay safar kale aaddo, arrintaas inay dib uga fiirsato waan ka codsanaynaa, oo ay muhiimadda saarto hawsha aynu hayno oo deg deg ah. macnaha hadda ama 10 beri hayna ku qaato ama 2 usbuuc hayna ku qaato, deg deg waxaan u leeyahay dad badan baa waxay iska jecel yihiin in biliga iska jiitanto. hadda bili haddaan jiitanto dee maxaa dhacaya marka hadda 2 sano aynu soo soconnay, 2 sano kale aynu jiitamaynaa marka sidaa darteed waxaan ka codsanayaa senatarada ka codsanayaa hawshaas inayan jiitimaan danbe ina ku jiidinin, oo aynu sida ugu muhiimadda ay leedahay aynu u qaadanno oo u fulino. dabcan waa hawl qaran, muddo badan bay qaadanaysaa. sidaan anigu u dedejinahayo waxaa suurtooda inay ka hawl badnaato oo 3 isbuuc iyo ay noqoto, laakiin waa inaynan la dhaafinin inta soonka lagu jiro. hawsha inaynan la dhaafin baan idiin soo jeedinayaa, idinka codsanayaa. kulanka labada aqal waan sheegayo dabcan waa laga shaqaynayaa, labada xog haymood iyo annaga ayaa ka soo shaqayn doona waktiga uu yahay, laakiin inta ka horeysa hawlaheenna kaleeto ayaynu sii wadan doonaa.